xilli ay soo badanayaan dadka iyagu wiil daran xanuunada dhanka dhimirka ama maskaxda ayaa culimaadudiinka ku dhaqan magaalada Laascaanood ay ugu baaqayaan guud ahaanba jaaliyada Soomaaliyeed iyo ummadda muslimiintaaba inay soo caawiyaan qoys Soomaaliyeed oo laba qof oo kamid ah ay ku dhaceen xanuunkaasi dhimirka. qoyska Maxamed Axmed Farax oo ka kooban ilaa iyo 19 qof ayaa waxa xanuunka dhimirku saameeyay aabihii qoyska iyo wiilkiisii curad, taasi oo saameyn laxaad la ku yeelatay xaaladda nololeed ee qoyska kan. Hadaba Sheekh Xasan Carab oo kamid ah culimaadudiinka deegaanada Sool Sanaag iyo Cayn ayaa ka warbixinaya xaaladda qoyskaasi uguna baaqaya guud ahaan ummadda Soomaaliyeed inay soo caawiyaan qoyskaasi. walaalayaal waa Sheekh Xasan Carab Ismaaciil gudoomiyaha ururka danyarkaal welfare organization dawo. marka kulli insha Allah taala walaalayaal waxaan doonaynaa maanta halkan inaan idinku soo gudbino qoys runtii danyar oo dhibaataysan horena looga baahiyay warbaahinta xilliyo hore. qoyskaas waxa weeye ninka la yiraahdo Maxamed Axmed Farax. walaalayaal xanuun baa ku dhacay xagga maskaxda muddo 10 sano ka hor. muddo yar kadibna inankiisa curad ayaa xanuunkii ku dhacay ka asibay maskaxda walaalayaal. taasi waxay keentay Maxamed Axmed oo laba qoys lahaa reer miyi ah in maaragtay uu ku dhaco maaragtay burbur ku dhaco oo maaragtay dhibaato soo gaadho. qoys miyi maanta qoysas miyi ku nool wad garanaysaan walaalayaal. caruur 19 caruur ayuu leeyahay. marka walaalayaal dhibaatadaas runtii ayaa soo food saartay. wadankana burburka waad ogtihiin iyo maaragtay wax ka jira. marka walaalayaal waxaan doonaynaa maadaama aynu ku jirno 10kii dambe ee khayrka badnaa ee dadka muslimiinta ay u kala dheereeyaan inay sadaqadeystaan. maanta kale walaalayaal waa meelaha ugu muhiimsan ee maaragtay qoyskan dhibaataysan ama qoysas baa la oran karaa. walaalayaal inaad u soo gurmataan oo aad insha Allah dawo u socotaa. ilaahay waxaan ugu baryaynaa in ilaahay dawada ku bogsiiyo. walaalayaal marka inaad maaragtay u soo gurmataan oo wixii aad haddaad fidr u soo dareystaan, haddaad saka u soo dareystaan, haddaad sadaqad furan u soo dareystaan walaalayaal. waa meelaha ugu habboon maanta ee runtii ay qofka insha Allah taala ashar iyo xasanaad ilaahay ka siin doono. marka walaalayaal waxaan aad iyo aad si maaragtay naxariis leh haddaan nahay culimada gobolka Sool gaar ahaan magaalada Laascaanood qoyskaas inaad u soo dadaashaan dhammaan cidda uu fariintani gaadho insha Allah taala dal iyo dibadba walaalayaal dadka ilaahay wax siiyay maanta kale inay walaalayaal u soo dadaalaan oo ilaahay waxaan uga baryaynaa qofkii marka qoyskan u soo gurmada in ilaahay balaayo kaga xijaabo. ilaahay dhibaatooyinkan oo kale xagga maskaxda walaalayaal waad garanaysaan qof laga asiibay oo hogaamiye ahaa oo 19 qof iyo laba xaas walaalayaal ka mas'uul ahaa. ininka curadna oo xanuunkii oo kale kaga dhacay maskaxdii labadaba ay maskaxdii dhibaato ka soo gaadhay. qoyskii miyiga maanta waad garanaysaan qoysaskii oo maaragtay iyaguna waxa lagu leeyahay qoys waliba 30 ariyabu xoolihii ku soo urureen. maanta waad fahmi kartaan dhibaatada intaa la eg. marka walaalayaal ummadda muslimiinta ee Soomaaliyeed ee codkayga maqlaysa ee maaragtay fariinta arki doonta warbaahinta ka arki doonta waxaan aad iyo aad si naxariis loogu codsanaynaa 10ka dambe ee khayrka badan inay u soo gurmadaan iyagu marka insha Allah taala ugu soo hagaajin doona lambarada shaashada lagu soo qori doono biidhnillah taala. السلام عليكم ورحمة الله. dhanka kalena maraan booqanay guriga ay ku dhaqan yihiin labadan nin ee qaba xanuunka dhimirka ee isdhalay ayaa hooyadii dhashay ama hooyadii qoyskaasi waxay ka warbixinaysaa dhibaatooyinka ay kala soo kulantay daaweynta ninkeeda iyo waliba curadkeeda. odayguna wiilkuna wuxuu xilsanayay 5 sano intaa waa la hayo wala la daala dhacay. marka hadeer waxa isbedel ma waxaan salaameynaa walaalaha iyaga muslimka ah. salaaka baadide kana waa odaygayga diyaarkuna wiilkuna waa curadkayga. marka waxaan xusuusanaynaa walaalaha iyaga islaamka ah inay nasoo caawiyaan waxa awoodooda laba qoys baan nahay. marka waxaan nahay 12 qof waxaan xanuunsanaya baadiyada waa nahay oo waxa adeerto waxa hanti yar oo ariya baan haysanaa wax xoolaha. marka awoodina way ka badantay meel leeyahay. awoodina daaweyntoodii way ka badatay wixii hanti aan lahayna way raacdayba. marka waxaan doonaynaa walaalaha iyaga muslimka meel kasta ay joogaan
inay soo caawiyaan ragga xanuunsanaya nin waliba awoodiisa wixii heli karo si kastoo yahaataba baaqa kan ayaa ku wajahan guud ahaanba ummadda Soomaaliyeed ee Islaamka iyo cid kasta oo markaasi jecel inay khayrka ka qayb qaadato inay markaasi u soo tabarucaan qoyska kan dhiban ee ka kooban 19 qof oo markaasi ka kooban 2 qoys ama raahde 2 bahood haddaba cid kasta oo danaynaysa inay gacan ka geystaan sidii ay u caawin lahaayeen qoyskaasi dhiban waxa ay kala soo xiriiri karaan telefoonada ku qoran shaashada